soo dhawaada haddii aad maqli jirteen khayr ha samayn sharikuuma timaadee waatana iyadii oo muuqaal ah ninkan intii uu islahay naagtan uur kale oo isbitaalkan joogta lacagtan u aruuri oo caawi ayay isla asagii ku bilaabay oo lacag boorsada ku watay ka baxsanee markii uu u soo aruuriyay lacagtii dhanna wuu siinaa iyadana waatanaahe way u mahadcelinay lacagtaana oo walba qorshay ka wadatay oo waxay ahayd lacag feeg ah markii uu ka tegay qashinka guridii sidoo kale uurkuna wuxuu ahay mid been ah waa kana isagana waa la qarxina midaan maanta mishikan inay fuliso way isku soo diyaarisa dharkii intay bedel timihii iyada dhan waxay ku soo baxday nooc kale kadib intay soo baxday waxay u imaanay dhakhtarka qaybta qaliinka waxay ku dhehaysaa waxa ka rabaa inay iga dhigto number 3 isaguna waxa uu sheegaa in qaliinkeeda la diyaarinayo asbuuca soo socdo haddana ay iska sii bixisa lacagta iyada oo lacagtii soo bixi rabto ayaa albaabku waxa ka soo galaya midkii ay lacagta ka soo xadaysa iyo gabar yar oo dhalo isaga la socoto dhakhtarku midkan wuxuu ku dhahaa adiga ballantaadii ma la gaarin waxa ka dhiman hal saac isaguna wuxuu dhahaa waa ogahay laakiin waxa rabaa hadda inaan lacagta sii bixiyo si gabarteeda yarta qaliinka loogu sameeyo boorsadiisii markii uu lacag dhan muku arkaayo ileen horaa looga baxsadee dhakhtarku midkan wuxuu ku dhahaa waa ka xumahay inaan arrintan ku dhaho adigoo aanan bixin lacagaha loo baahan yahay gabartaada yartaa qaliinkeeda ma bilaabi karno gabadha yar aabaheed waxay weydiinaysaa sababta uu u murugaysan yahay iyo inay wax walba caadi yihiin isaguna gabadhiisa niyadow u dhisaa wuxuu ku dhahaa waxaa jiro arrin yar arrintaas yartaana anigaa xalina adiguna markii aad ogaatay in gabadha yartaa been loo sheegay muuqaalka leeg saare dhakhtarkii intuu kusoo jeesto wuxuu dhahaa haddii aad aragtid lacag waraaqad ku jirto aniga isoo wac waraaqada dhinaca kore waxaa ugu qoran Stephanie oo ah gabadheeda yarta magaceeda saaxiibtiina waatanahay waxay fiirinaysaa waraaqada magaca ku qoran waxayna arkay in gabadha yarta magaceedu ku qoran yahay iyadoo waraaqadii ku sii jeedo ayaa dhakhtarka inta soo jeediyo waxa ku dhahaa dayt Soomaaliya igu dhihin lacagta hadeera bixina iyadoo walwalsanay dhakhtarka waxay ku dhehaysaa waxaan u maleynaa inaan lacagta soo tirin hadeera baxa banaanka ku soo tirina dhakhtarku wuxuu la yaabay midaan waxa ku dhacay markii ay banaanka u soo baxda waxa qabana aabihii iyo gabadhiisa intay isku naxday lacagtii waxay gelinaysaa buuq aysan aqoonin cidda iska leh intay soo jeesatay Stephanie aabaheed waxay weydiinayeen wuxuu ka rabo wuxuu ku dhahaa xoogaa ka hor Soomaalida ku jirin qolka qaliimada iyaduna waxay ugu jawaabay haa waa saxanta wuxuu ku dhahaa qaybtaas iyo agagaarkeeda mu ku aragtay gabar iyada timaheeda waxaa ku jiray cadcadaan uurna weylheed waxaan aaminsanahay iyadu inay tahay qofkii ixaday iyaduna waatanaahe waxay u sheegaysaa inaysan qof dhan arkin oo tilmaamahaas leh waxay bilaabay inay iska dhigto qof arrintaas ka xun wayna u tacsiyeene gabadhii yareed ee Stephanie buugaagtii ayada iska lahayd intay soo qaadatay aabaheed waxay ku dhehaysaa na soo bixi iyada oo u malaysa inay arrinteeda u saxantahay kuwan macsalaameynay isla markiina waxay ogaanaysaa inay kuwan buugaagta iyaga iska lahaayeen ayna qaateen alaabtooda midaan wax dhan ma ka dhintaan waxay rabtaa dharkan inay qaadato ay kuwii hadda ka daba tagto inay lacagteeda ka soo ceshato